maqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa 10ka tirishe ee ugu lacagta badan sanadan 2020 halka aad nagala socotana waa Leewaya Films. Nambarka 10aad waxaa gashay Berneti Jobra inkastoo aysan saameyn badan ku lahayn filmadii ugu dambeeyay sidoo kalena aysan guul laxaad ah gaarin haddana weli nambarka 10aad ayay kaga jirtaa hablaha ugu lacagta badan India ee filmada jila. Berneti ayaa haysta lacag lagu qiyaasay 60 karoor. Nambarka 9aad waxaa ku jirta Shruti Hassan maxaa yeelay awood ay ku leedahay koonfurta India ayaana sababtay inay kaalinta 9aad soo gasho. Shruti Hassan lacagteeda ayaa lagu qiyaasay 65 karoor. Nambarka 8aad waxaa ku jirta Sonam Kapoor. Film jelista maahe ee Sonam Kapoor waxay caan ku tahay fashionka waxayna hadda kaalinta 8aad kaga jirtaa liiska atirushooyinka India waxayna haysataa 75 karoor. Nambarka 7aad waxaa ku jirta Alia Bhatt waa mid ugu macquulsan laguna jecel yahay xilligaani la joogo Bollywoodka. Alia Bhatt ayaa kaalinta 7aad kaga jirta liiskan xidigtan ayaa xiisaynaysa film jelista tan iyo caruurnimadeeda. Alia Bhatt lacagta ee haysato ayaa lagu qiyaasay 76 karoor. Lambarka 6aad Kangana Ranaut inay tahay mid ka dhex muuqata Bollywoodka looguna yeero boqorada Bollywoodka ayaa dhaxal siisay inay liiska 6aad ka soo gasho kala horeynta xagga lacagta waxaana la ogeyn halka ku ekaan doonto muranka ee gasho. Kangana Ranaut ayaa hadda haysta lacag dhan 100 karoor. Nambarka 5aad waa mid ka mid ah tirishooyinka ugu sareeya India waqtigan Anushka Sharma waxayna liiskan kaga jirtaa nambarka 5aad. Xidigtan ayaa halkii film ku sameysay 8 karoor ilaa 10 karoor waxayna haysataa lacag dhan 100 karoor. Nambarka 4aad xidigtan ku dhalatay Hong Kong Katrina Kaif ayaa liiskan kaga jirta kaalinta 4aad. Filimkeeda ugu horeeyay ee Boom wuxuu ahaa mid aad lagu qasaaray laakiin dib uma aysan fiirin gadaal oo waxay filmo guuleysay la sameysay Salman Khan. Lacagta xidigtan ayaa halkii film waxa ay ku sameysay lacag gaaraysa 8 ilaa 10 karoor halka xayeysiimahan ay ku qaadato 7 karoor waxayna haysataa 200 karoor. Nambarka 3aad kaliya maaha filmada Bollywoodka waxay saameyn muuqato ku leedahay filmada Hollywoodka waxayna ku jirtaa Priyanka Chopra kaalinta 3aad waxayna haysataa lacag dhan 225 karoor. Nambarka 2aad waa mid ka mid ah tirishooyinka ugu guulaha badan Bollywoodka Kareena Kapoor Khan waxayna ku jirtaa kaalinta 2aad liiskan waxayna faraqa ku haysataa lacag dhan 400 karoor. Nambarka 1aad waxaa ku jirta Deepika Padukone liiskan ayaa nambarka 1aad ka tahay waxaana xidigtan haysataa lacag dhan 425 karoor. warbixinta intaas ayaanu ku soo xirayaa la wadaag asxaabtada haddii aad warbixinta ka heshay.